waxaan ku soo dhex jirnay xisaabtaynii dugsiga hoose dhexe gaar ahaan fasalka 7aad ciwaanka loo yaqaano boqoley casharkiisa 2aad waxaan casharkan ku baran doonaa sida boqoley loogu qoro jajab ahaan sidee boqoley jajab ahaan loogu qoraa ayaan casharkan ku baran doonaa hagaag waayahay tusaalaha 3aad tusaalihii 1aad iyo 2aad hore aan soo qaadanay waxay aheeday jajab loo qoraayo boqoley maantana waa boqoley loo qoraayo jajab cagsi waa soo jeedaa marka nambarba waxaa la yidhi u qor 20 boqolkiiba jajab ahaan u qor 20 boqolkiiba jajab ahaan waayahay furfur ayaan leenahay furfur 20 boqolkiiba markaan boqoley ahaan u qorayno fiiri marka sharaxaad yaraan ka hormarinaynaa boqoley ahaan marka wax u qorayno tusaale markii lagu siiyo 20 boqolkiiba markii lagu siiyo calaamadan boqolkiiba markii lagu siiyo waxaan leenahay 20 soo qaado calaamadan boqolkiiba waxay u dhigantaa boqol hooseeya ayay u dhigantaa waxaa loo qoraa 20 la hoos dhiga boqol mar kastoo calaamadan lagu siiyo waxay naqeen calaamadan boqol hooseeya isu bedelaya marka boqol hooseeya ayay isku bedelaysaa intaas waxaan isla soconno waayahay intaan isla soconno hagaag furfur 20 boqolkiiba calaamadan aan sarrifaynaa markaan sarrifno waxay naqeen 20 la hoos dhigay boqol 20 la hoos dhigay boqol halkaan marka la joogno ebertan iyo ebertan isla bixi marka ebertan iyo ebertan isla bixi maxaa soo hera kor 2 hoosna waxaa ku soo hera 10 equal 2/10 kor waxaa ku soo heraysa 2 hoosna 10 ayaa ku soo haraysa haddana isku sii yaray 2 iyo 10 maxay wadaagaan 2 ay wadaagaan inta 2 qaybi 1 ay naqanee intana 2 qaybi 5 ay naqanee ugu dambeyn waxaa soo baxaysa 1 la hoos dhigay 5 1/5 1/5 amba 1 la hoos dhigay 5 20 boqolkiiba waxay u dhigantaa marka 1 la hoos dhigay 5 amba shantiiba mid ka mid ah ayay u dhigantaa waaye nambar ba waa kanu lambar ta maxaa la yidhi sigana u qor 45 boqolkiiba jajab ahaan 45 boqolkiiba waxaa u qoraysaa jajab ahaan furfuraan leenahay 45 boqolkiiba calaamadan sarrifaynaa calaamadan boqolkiiba ah ayaan sarrifaynaa markaan sarrifna waxay naqanay 45 la hoos dhigay boqol 45 la hoos dhigay boqol hadda maanta eber iyo eber ma jirto laakiin waxaan leenahay kor iyo hoos maxay wadaagaan qaacido dhehaysaa jirta tiro kasta oo 5 u dambaysa 5 loo qaybi karaa tiro kasta oo eber u dambaysana 5 loo qaybi karaa kor iyo hoos marka waxay wadaagaan 5 ayaa loo qaybi karaa 45 waxay ka timid 5 9 ku dhifo waa loo qaybi karaa 9 soo baxay kana waxay ka timid 5 20 ku dhifo waa loo qaybi karaa 20 soo baxayso kor 5 u qaybi marka 45 haddii 5 loo qayb 9 soo harayso boqol haddii 5 loo qaybsan waxaa soo haraysa 20 haye 20 9 iyo 20 maxay wadaagaan wax ma wadaagaan sababtayna wax ma wadaagaan u leen maxay tahay 9 waxay ka timid 3 lagu dhiftay 3 u qaybsamay bis wax kale u qaybsamay maahan iyo 9kan bis u qaybsamaysa hoos waxay ka timiday 4 lagu dhiftay 5 iyo 2 lagu dhiftay 10 iyo 1 lagu dhiftay 20 intaasoo dhanna meeshaan laga heli ma karo marka 9 iyo 20 wax ma wadaagaan halkaasay ku dhammaaneen tusaalaha ta'na 9 la hoos dhigay 20 ayuu ku dhammaanaa tusaalaha afraadkii hadda ka maag dheer asigani ba waxaa la yidhi u qor 75 boqolkiiba jajab ahaan 75 boqolkiiba waxaa u qoraysaa jajab ahaan waaya furfuraan leenahay 75 boqolkiiba calaamadan boqolkiiba ayaan sarrifaynaa marka waxay naqeen 75 la hoos dhigay boqol 75 la hoos dhigay boqol maxay wadaagaan 5 u dambaysa kan eber u dambaysa 5 loo qaybi karaa
nambarka ugu fudud oo fahmi kartid shanaa loo qaybi karaa tiro kalaa jire laakiin shanaa ka fudud shanaa loo qaybi karaa 75 shan u qaybi 15 ay noqonaysaa 5 meelood oo min 15 ah ayaa 75 keenaysaa macnaha boqolna waxaa u qaybisaa 5 20 ay noqonee weli shanaa u dambaysa kanna waxaa u dambeeya ibir 5 u sii qaybi 15 5 u qaybi 15 5 u qaybi waa 3 20 5 u qaybi waa 4 3 iyo 4 waxay wadaagaan waxba ma wadaagaan halkaa ayay kusoo gabagaboobaydan 75 boqolkiiba waxay u dhigantaa 3/4 amba afartiiba 3 ka mid ah saar 4 shay lagu diray 3 ka mid ah soo hesh haddii lagu yiraahdo jabhaan u qor waxay noqonaysaa afartiiba 3 haya amba waxaa percentage ahaan u qor 75 boqolkiiba wixii lay diray waa hayaa saasay noqonaysaa haybta maxay noqonaydani u qor 60 boqolkiiba jajab ahaan 60 boqolkiiba maxaa u qoraysaa jajab ahaan u qor furfur dhehe 60 boqolkiiba calaamadan boqolkiibaan sarrifaynaa maanta waxaan baranayn waa sarrifka calaamadaas ayaa maanta diiradda noo saarantaa waayahay naqee marka 60 la hoos dhigay boqol korna eberay wadataa hoosna eberay wadataa isku yaryaray wax si kale loo fuuday karoo jirta laakiin qaabka ugu fuudan kuu sharxu hayaa inta eber u qaybi intana eber u qaybi ebertaan isla baxa macnaha kor lixaa ka soo baxe hoosna 10 kor lixaa ka timid hoosna 10 ay 6 iyo 10 maxay wadaagaan waa tiro dhabana maadaama ay dhaba yihiin labay wadaagaan 6 lagu qaybi 3 10 lagu qaybi 5 waxaa soo baxaysa 3/5 amba 3 loos dhigay 5 ugu dambeys 3 loos dhigay the last answer is 3/5 waa fahamta soo ma labadan wax ma wadaagaan yaa waxay wadaagay ma jiriyo common factor ay wadaagaan ma jiriyo halkaasay ku dhammaanaysaa marka ba iyo ta halkaasay ku dhammaanaydan layli isku day inaad ka shaqaysid layligaa buuq qaado ku guuri ka shaqay tusaale number 1 number 2 number 3 number 4 afar xabaa lagu diray dhinacan boqolley waaye dhinacaana jajab ahaana lagu qorayaa boqolleyda waxaa lagu siiyey 30 boqolkiiba waa laga shaqeeyey midaan tusaala lagaa siiye 30 boqolkiiba jajab ahaan waxay noqonee 3/10 ayay noqonaysaa 3 loos dhigay 10 adaa waxaa laga rabaa 25 boqolkiiba maxay noqon inta ku buuxi 60 boqolkiiba maxay noqon inta ku buuxi 90 boqolkiiba maxay noqon inta ku buuxi fiidiyowga in joojisatid oo boos dhexsatid buuggaaga soo qaado layli ciwaan ka dhigo jadwalkan sawiro xariiqmayso xariiqmanka u samayso kadib waxaa leedahay inta number no soo gaabi 1 2 3 4 4 number waay meeshaan boqolley ku qor jajab ku qor boqolleyda maxaa geli 30 boqolkiiba 25 boqolkiiba 60 boqolkiiba 90 boqolkiiba then jawaabta koodaa lagu siiyey tan ka soo shaqay jawaabta inta ku soo buuxiyo waa soo shaqaynaya markaa soo shaqaysa jawaabta ugu dambaysa soo baxaysa inta gelinaya haye kan ka soo shaqay macnaha jawaabta ugu dambaysa markaan ku leeyahay waxaan ula jeedaa hadda kan aan ka soo shaqayn 60 boqolkiiba waxaa soo baxaysa 3 loos dhigay 5 jawaabtan ugu dambaysa meesha soo gelinaya jawaabta ayaa meesha soo gelinaya marka ka soo shaqay soo geli ka soo shaqay dhammaan layligan isku day si aad u fahamtid casharkii ma fahamtay ma dabaqi kartaa intaas ayaa muhiim xisaab sideer waxaa waaye ka shaqayn dhammaad halkaa ayuu ku dhammaanayaa casharkeen maanta daawadayna sharafta badanow haddii halkaan aad soo gaartay waxaan kaa codsanaynaa janalka subscribe inaad noo saartid kambalelkan aad furatid si aad u heshid casharada aan soo gelinno laagta fideoga noo saar commentigana noogu reeb wax allaala wixii tala iyo toosin iyo tusaale aad haysid aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu